بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال كلمة إن شاء الله تعالى وحان ربائنا أن أغسو قدبيو ولا لها مسلمين تاء قارهان ضدك وحدلي أما والدك رقي الدمر دعاء سو عرورتو دا يقود عينيان دعاء وحا إسكاله عرورتادا هداد وآخرسيد إلهي إذن كيس إلهي وكو حفظنيا ونكو إلالينيا دعادان آبا كستا أما هويا كستا أي كسعوتا أو فرينو تهي أما كوا آبا نقن دونا أما هويا نقن دونا مستقبلك دعادان كسوع العليا عصريغان أما وقتيغان أما مالمهان إنو نولنهي أو نقضي مالما فتن مالما حسد مالما حقد إيا حمان إيا مكر ليسكو أبابليو دعاءنا خصو إن شاء الله تعالى عرورت هذا إلهي وكبد بادنيا إن شاء الله تعالى أما أخلاق ذو إنه حماسه أما دين تو إنه حماسه عقيدة حن لبره أما عمل حن يفسق لبره أما لقى فسادية با إلهي وكاغا حفظنيا مركا دعاءنا إن شاء الله تعالى سنية له ونكسن وأخرسين دعاءهم حيل هذا اللهم إنك وهبت لي من غير حول مني ولا قوة فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة اللهم احفظهم من كل مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم اللهم جنبهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشا اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم كما حفظت كتابك إلى يوم الدين احفظهم من الشيطان الرجيم اللهم ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا الرحمن يا جبار اللهم أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان يا الرحيم يا لطيف اللهم متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي وصلى اللهم وسلم وبارك على خير الأنام وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار إلهي أستودعك أبنائي قطعة من قلبي في مكان غابت عنهم عيني وعينك لم تغب فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك مرك الدعاء qof kasta oo aabba ama hooyo noqon doona ama hadda noqoday ayaa caruurtiisa ugu ducaynaya ma sha Allah waa duca khayrka adduunyo iyo khayrka aakhira ku soo koobtay ilaahayna kaaga badbaadinaya sharka adduunyo iyo sharka aakhiraba caruurtaadana way ku noqonayaan kuwa ilaahay ku xiran tabaaraka wa tacaala si wanaagsan hadda oo akhrisida oo niyo leh aad ugu ducaysid caruurtaada waxaan kaloo la soconaa waalidka ducadiisa waxay ka mid tahay ducooyinka aadka loo ajiibo oo ilaahay uu aqbalo tabaaraka wa tacaala marka qof kasta waxaan ka rajaynaynaa oo ducadan ay gaarto inuu sii faafiyo haddaad sii faafisid wanaaga waa ka qayb gashay ducadaas carabiga haddaada kari karin carabiga sidaas haddaada akhrin karin ama qaar ka fahmaysid af Soomaali waa u bedelan kartaa oo mar labaad haddaan luqadeena ku akhriyo macnaheedu waxa weeye bilowgii aan soo bilowno ilaahu adaa ii hibeeyay caruurtaan magacyadooda sheegaysaa marka magacyadii wiilasha ama hadday gabdho yihiin magacyadu ilmaha sheegaysa markaas waxa leedahay ilaahu adaa ii hibeeyay caruurtaan hebel iyo heblaayo awoodayda kuma keensan xeeladayda kuma keensan ee adaa ii hibeeyay laana waa hibo lillahi ma fi samawati wal ardi yahabu liman yashaa'u inatha wa yahabu liman yashaa'u dhukur aayaadki fi suurati ash-shura waa hibo ilaahi caruurtu ilaahu xifdigaada ku xifdi ilaahu shar kasta iyo makri kasta iyo xumaan kasta ka ilaali iyo dhib kasta xanuunada dhammaan Allah ka ilaali Allah imtixaankayga ayaga dhexdooda ha dhigin dad waxa jira waalid waxa jira caruurta oo lagu imtixaamay oo ku caasiyay ilaahu sidaas oo kale ha ka yeeli
ilaahu fitanka kuwooda hooseeyo kuwooda muuqdaba ka ilaali ilaahu ku dar addoommadaada saalixiinta ah iyo kuwa kitaabkaada iyo diintaada xifdiyey ilaahu ka mid yeel dadka ugu wanaagsan diin ahaan akhlaaq ahaan cibaado ahaan ilaahu noloshooda ka dhig nolol degan nolol barwaaqa ka dhig ilaahu fadligaada ku kaafi oo xaaraamta iyo xumaanta uga ilaali adigana kuwa kugu xihan ilaahu ka dhig rabbigayow ii xifdi carruurtayda sida kitaabkaada ilaa yowmaalqiyaama aad u xifdisay ilaahu shaydaanka ka xifdi ilaahu ku irsaaq saaxiibbo wanaagsan iyo dad khayr qaba in adiga ku tala saartaan allow ku irsaaq xanuunnada quluubta iyo xanuunnada jidhka allow ka ilaali ilaahu ujeeddada carruurtaana ka leeyahay iga sii oo ah inaan ku farxo ku ilqabowsado yaa kariim ilaahu baarinimadooda igu raaxee noloshayda intaan noolahay iguna gargaar ducadooda markaan dhinto markaasaa waxaad leedahay ilaahu carruurtayda adaan kugu ammaansaday waa qayb ka mida qalbigayga iyo wadnahayga ilaahu ii xifdi meesha ishaydu ay ka maqan tahay adiga ishaada kama maqno mar kasta waad u jeedaaya ilaahu iga ilaali xumaanta kadibna salligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaad ku soo khatimaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay carruurtaada wuu kuu xifdinayaa ilaahay waa ka xishoodaa qacmo loo soo taagtay inuu ayagoo eberah celiyo ilaahay waa ka xishoodaa qof mu'minah oo ilaahay tala saartay oo ilaahay rajaynaya khayrkiisa oo carruurtiisa doonaya inay u wanaagsanaadaanna ilaahay ducadiisa celinmayo tabaaraka wa tacaala marka bishaarayso ku bishaarayso ricaayada ilaahay iyo ilaalada ilaahay adduuniya aakhiraba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu